Inaad ag seexato qofka aad jeceshahay waxay yeelan kartaa faa'iidooyinkan la yaabka leh. Hurdada waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu nasashada badan ee la sameeyo. Inaad seexato maalin dheer kadib waa waxa keliya ee aad u baahan tahay si aad naftaada u buuxiso. Ku seexashada keligaa sariirtaada waxaa laga yaabaa inay cidlo noqoto mararka qaarkood waxayna kuu horseedi kartaa walaac ama luminta hurdo tayo leh. Dhanka kale, seexashada agteeda kuwa aad jeceshahay waxay noqon kartaa mid nasteexo waxayna keentaa faa'iidooyin caafimaad maskaxeed oo badan. Marka xigta, haddii ay dhibaato kaa haysato hurdada keliga, waxaad la koolkoolin kartaa lamaanahaaga, saaxiibada, hooyada, ama walaalka. Sida laga soo xigtay machadyada caafimaadka qaranka, la seexashada dadka aad jeceshahay waxay yeelan kartaa faa'iidooyin la yaab leh. Aynu eegno faa'iidooyinka cajiibka ah ee ay leedahay inaad ag seexato kuwa aad jeceshahay. Waxay yaraynaysaa welwelka iyo walbahaarka. Inaad ag seexato kuwa aad jeceshahay waxay kaa caawin kartaa inaad isdejiso oo aad hoos u dhigto welwelkaaga iyo walbahaarka. Xidhiidhka jidhka iyo taabashada maqaarku waxay calaamad u noqon kartaa qanjidhada adrenal si ay u joojiyaan soo saarista cortisol, taas oo ugu dambayntii caawisa dhimista walaaca iyo walwalka. Caafimaadka jidhka oo soo hagaagay. Markaad la seexato qof aad jeceshahay si uu ku siiyo shirkad, waxay kaa caawin kartaa hagaajinta caafimaadkaaga jidhka, sidoo kale hoos u dhigista cadaadiska dhiigga, yaraynta bararka, iyo xoojinta nidaamka difaacaaga. Inaad ag seexato qofka aad jeceshahay waxay yeelan kartaa faa'iidooyinkan la yaabka leh. Waxay wanaajisaa caafimaadka maskaxda. Hurdada keligeed waxay kaa dhigi kartaa kelinimo, niyad jab, iyo walaac. Dhanka kale, la seexashada dadka aad jeceshahay waxay wanaajin kartaa caafimaadkaaga dhimirka adigoo hoos u dhigaya niyad jabka iyo walwalka iyo kordhinta guud ahaan fayoobida. Waxay hagaajisaa tayada hurdada. Markaad seexato meel u dhow qofka aad jeceshahay, waxay kaa caawin kartaa inaad si fudud u seexato oo aad sidoo kale u wanaajiso tayada hurdadaada. Waxay ku dhacdaa taabashada jidhka awgeed, waxay yaraynaysaa oxytocin, taas oo kaa caawin karta inaad dareento deganaan iyo ammaan. Inaad ag seexato qofka aad jeceshahay waxay yeelan kartaa faa'iidooyinkan la yaabka leh. Waxay xoojisaa xidhiidhka. Inaad ag seexato kuwa aad jeceshahay waxay kaa caawin kartaa xoojinta xiriirkaaga adiga oo kordhinaya xiriirka dhow iyo dareenka. Waxay kaa caawin kartaa xoojinta xidhiidhkaaga iyo caawinta dhisidda xidhiidh adag oo caafimaad qaba. Hurdada REM oo korodhay. Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa kordhinta hurdadaada REM, dhaqdhaqaaq isha degdega ah, taas oo muhiim u ah nidaaminta shucuurtaada, xoojinta xusuusta, iyo guud ahaan fayoobida. Haddii aad weligaa dareento walwal ama kelinimo hurdo, waxaad ag seexan kartaa kuwa aad jeceshahay, waxaad yeelan kartaa hurdo tayo leh, waxaadna ka faa'iidaysan kartaa caafimaadkaaga jir iyo maskaxeed. Habeenno nasasho la'aan ah. Daaha ka qaad siraha hurdo nasasho leh.